dhalinyarada lab iyo dhadig bale ee baraha bulshada aad uga dagaalamay ee hawsha ka dhiidhiyay ee wacdaraha ka muujiyay ee markaan dhageystay ama aan daba galay qalbigaygu ku qaboobay aad bar ugu farxa qadiyada ayada in muslimiintu maanta dhalinyaradoodii ay taagan yihiin ninkii nabiga wax ka sheega ama diinkeena dura inay halka la gaaraan dareenka maanta ay qabaan dhalinyaradu muslimiinta lab iyo dhadigba hadduu 75 jiri lahaa culumadani lama laayeen inay siyaad barre dan baarida kuma gowraceen ninka boqorka ama madaxweynuhu ah waa faajir daaqi ah wuxuu qiimeeyaa kolba bulshadu meeshay marayso haddii bulshadu yacti dhaahdo wuu cabsadaa haddii u hogtaanna wuu dullaystaa xaqiiqo la ogyahay weeye arrintaa dhallinyarada baraha bulshada inaan u mahadnaqo waxyaabaha ay u kalifo weeye inaan caawa ka hadlo qadiyadda ayada ma jeclayn inaan qadiyaddaas aan soo celceliyo idinkoo igu daalayay kuwa lamida inaan ka hadlay laakiin dareenka ay dhalinyaradu lab iyo dhadigba baraha bulshada ka muujiyeen ee diin jacaylka ah ee danqashada ah ee islaam jacaylka iyo dhiidhiga ee ficilada diineeda ayaa idanqay oo u kalifay inaan qadiyadda caawa ka hadlo qodobkaasi mahadnaqa dhalinyaradu waa iga mudan yihiin khayr allah siiyo duunkada allah ku sugo mar walbo qadiyadda noocaas ay timaadana waxaan ka doonayaa inay ka hadlaan qodobka ii raaca